wiilashii operationka fuliyeen waxaan leenahay waa mahadsantihiin dowladnimada u shaqayseen shacabkiina u shaqayseen waa mahadsantihiin inta kalena waa lagu daba jiraa waa la soo qaban doonaa hadduu ilaahay raalli ka noqdo saraakiisha maamulka dhammaan miidiyaha waxaa ku salaamantihiin salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu maanta ay taariikhdu tahay 13 bishii koowaad 2026 waxaan u joognaa inaan ka warbixino operation dhacay xalay taariikhdu markay 12 bishii koowaad 2026 abaaro 3 saac habeenimo laamaha amniga guud ahaan ee degmada oo fulinayo awaamiirtii hore ee u soo saartay maxkamadda ciidamada qalabka sida 5 bishii 10aad 2025 waaran soo qabasho iyo sidoo kale 15 bishii 11aad 2025 muddo ku siman 2 bilood waxay degmada iyo nawaaxigeedaba ka socday operationo isdaba joogo lagu baacsanayo niman ku eedeysan jidgooyo ku eedeysan dhibaateen dad shacab ah ama ha noqdaan xoolo dhaqato ama ganacsato isugu jiray ku eedeysana laamaha amniga iyagoo ku hol jira operationadoodii ayaa xalay waxay xog ku heleen raggii eedeysanayaasha qayb ka mid ah inay joogaan inta u dhaxayso Dudumay iyo Hakaw laamaha amniga oo feejigan ayaa waxay ku baxeen xogtaas ay heleen iyagoo amarka maxkamadana fulinaya intii operationka socday waxaa dhacday iska caabin ay sameeyeen eedeysanayaasha israasaasayntii gaabneed oo meesha ka dhacday waxaa ku geeriyooday 3 marxuum oo sida uu horay korneelku sheegay oo kow ka yahay nin ku magac dheeraa Suuley magaciisa loo dhameystiran leeyahay Yuusuf Aadan Xuseen iyo Sid Cabdi Sid Cali Cabdulle sidoo kale Cabdullaahi Kalar Ismaaciil intaas waxay ahaayeen eedeysanayaal ay horay maxkamadda u amartay in la hor keeno hay'adaha garsoorka qaybooda kala duwan xilli walba la soo qabto iyadoo operationadaas ay fulinayaan ciidamada qalabka sida ayaa waxa ka dhacday shaqaaqo waxay ku geeriyoodeen shaqaaqadaasaytii sida xeerka uu qabo la fulinayana waxaa la keenay saldhigga booliiska si dokumentiyo looga sameeyo waxaan la wadaagaynaa cid kasto oo ay mudneed in lala wadaago iyo shacabka Soomaaliyeedba maxkamadda ciidamada awaamirteeda iyagoo fulinaya laamaha amniga guud ahaan ayaa operationkaas dhacay waxaan mar labaad adkeenaynaa laamaha amniga oo aan faraynaa shacabka ku kala goosha guud ahaan deegaanka Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa waaranada laga soo jaray ee ku dhuumaalaysanay degmada Walaweyn iyo deegaanada hoos yimaado inay sharci hor keenaan waan bogaadinaynaa waa ugu mahad celinaynaa saraakiishii howlgalkaas hogaaminaysay wiilashii operationka fuliyeen waxaan leenahay waa mahadsantihiin dowladnimada u shaqayseen shacabkiina u shaqayseen waa mahadsantihiin inta kalena waa lagu daba jiraa waa la soo qaban doonaa hadduu ilaahay raalli ka noqdo assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu